halkaana waa deegaanka Docol oo 40 kiiloomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaana maamulka iyo shacabka deegaanka ay walaac xoogan ka muujinayaan biyo la'aan baahsan oo iminka ka taagan deegaanka Docol kadib markii uu jabay ceel biyoodkii ay ku tiirsaneed nolosha dadka ku dhaqan deegaanka Docol iyo sidoo kale deegaanada miyiga oo hoos yimaada Cabdulqaadir Warsamayare gudoomiyaha deegaanka Docol ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug kaasoo ku aadan in gargaar biyaha lala soo gaaro deegaanka Docol oo ay ku nool yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed dowladda federaalka ha ahaato midda Galmudug ha ahaato islaamka jaariyadaha u dhashay meesha waxaan ogeysiinaynaa inaan ceel meesha ku hayn oo ku rajo xunahay ilaahay waa fiicnay karaa laakiin kuma rajo fiicnin inuu dumay baan qabnaa sidiisaba shalay markii aan rabnay inaan soo bixino oo la soo 40 mitir oo kala banaanka la dhigay buu xagga iyo xagga midna u dhaqaaqi diiday hoosna u laaba diiday korna u soo bixi waayay dunta qabsatay inay tahay aan u aragnaa islaamka marka saasan dadka ogeysiinayna dibad iyo daaqal bay ogeysiinayna dowladda federaalka ogeysiinayna midda Galmudug ogeysiinayna reer Gaalkacyo ku ogeysiinayna islaamka ogeysiinayna jaariyadaha dibadda naga jiro oo dhan aan ogeysiinayna waa kuwan qaar kamid ah dadka ku nool deegaanka Docol iyo sidoo kale deegaanada miyiga hoos yimaada kuwaas oo walaac xoogan ka muujinaya biyo la'aanta hadda ka taagan deegaanka Docol isha macallina waad arkaysaan halkaan waa ceelkii Docol 17 sano dhisan yahay oo meesha qodan yahay waa ka tegid weeye sida muuqata hadda ilaahay si kasta loo soo xidhin waxaan rabnaa on kaana saameeyay dad iyo duunyo iyo waayeel iyo caruur iyo culimo waxaan maanta anaga ka hadlaynaa oo iskugu nimid oo bamkii 40 mitir aan soo bixinay tubooyinkii waa istaag inuu hoos u laabtana waa diiday inuu kor u laabtana waa diiday in hay'adaha deeq-bixiyaasha ah iyo wasaaradda biyaha Galmudug iyo dowladda federaalka in ay ka soo tiigsadaan wadilada dadkaas masaakiinta biyaha ayaa kaalin muhiim ah kaga jira nolosha bini'aadanka waxaana bulshada reer Docol ee gobolka Mudug ay dalbanayaan in gargaar degdeg ah oo ku aadan sida ceelkan dib biyihii looga heli lahaa lala soo gaaro baasha calaxaashay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deegaanka Docol